iga maqan ninkeyga maanta 5 aha umulahay waa dhali umulaha ku jiraasaan shalay subaxdii 2 saac mala igu soo baxay marka 3 saac ii bar ee waxa ay dhahay sheek adii biila ku soo diraa biilkii kadibna qaraxiya dhacay ilaa hadda telefoonkiisa ma dhacooyo waxaan ku suganahay isgooska Soobe ee magaalada Muqdisho shalay halkaani waxa ka dhacay 2 qarax oo aad u xoogan oo dadyo badan oo Soomaaliyeed ay ku baabeen dad aad u badan ayaa halkaani ku baabay kuwa kalena way ku dhaawacmeen shalay galab markuu qaraxu dhacay ilaa iyo hadda wadada way xirneed goor dhow ayaa halkaani waxa furay ciidamada dawladda oo markii hore halkaan xiray dhibaatadii ka dhacday isgooska Soobe waa ay ka duwan tahay sida uu qiyaasi karo qof aan halkaan imaan iyadoo xaaladdu goobtu ay tahay mid aad u murugo badan waxa ku dhintay in ka badan 100 qof halka tiro inta ka badanna ay ku dhaawacmeen ma jirto wali tiro dhab ah oo la sheegi karo iyadoo dad badan ay halkaani u joogan sidii ay ku heli lahaayeen ehel iyo asxaab ay la yihiin waxa dadka qaar ay aaminsan yihiin in burburka daaraha ay ku hoos jiraan wali dad kale inkastoo hadda ay socoto baadi goob lagu jiro iga maqan ninkeyga maanta 5 aha umulahay waa dhali umulaha ku jiraasaan shalay subaxdii 2 saac mala igu soo baxay marka 3 saac ii bar ee waxa ay dhahay sheek adii biila ku soo diraa biilkii kadibna qaraxiya dhacay ilaa hadda telefoonkiisa ma dhacooyo waa kurbeesanahay xal ilaa hadda raashin afkay misaaran isbitaal kasta tagi isbitaalkii waa ku soo waayay hatta hal gacna hadda lagu soo helay dhibaatadaas ay hayso hadda ummadda waxay taagan tahay sida loo gurman karaa gurmashadu waa labo ina qof qaadid ina dhiig shubtid waaye ina qof qaadid ina dhiig shubtid maanta waxa loo isbitaalada dadka dhiig la'aan u dhimanayaan isbitaalada dadka jooga ugu ee bukaanada ay ku jira intooda ugu badan waxay rabaan in dhiig loo shubo rabaan waa idin bariyaa qof kasto saxaafadda inta ugu badan waxay jecel yihiin in wax la buubuuniyo la hadlo ay jecel yihiin laakiin waxa ay ka codsanayaa dadka tusiya baahida jirta isbitaalada ka jirto dhaawacnimada ka sokow dad waxa jira dhiig ku baahan aniga dhiigayga oo balaas waay nin waxa jira oo balaas aan u baahan dhiig kale u baahan walaalayaal isbitaalada la aado loo gurmado hala baxo wax fiirsi waxa loo qiimo badan inaan naf badbaadino waxa arkaysaa hooyooyin badan oo danyara oo tabaaleysan oo xanuunsan oo isbitaal ku jira oo dhiig u baahan wallahi hooyooyin ani waxa soo arkay umula oo dhaawaca oo haddana aanan awoodin dhiig qofku shubla ma haystaan ma awoodaan lacagta ay ku bixi laayeen waa idin bariyaa aniga waxa halkan u imaado waxay tahay dadkiina gubaabiyaana war dhiig shuba war soo baxa war isbitaalada taga dadkeena daawashada ku fiican yihiin wax qabadku ma fiicno walaalayaal hala baxo isbitaalada aada waa idin bariyaa inta dibadaha joogto inta dalka joogto haddaan la awoodi karin u ducee haddaa awoodi karta awooddaada ku caawi awoodda waxay tahay inaad xooggaaga siisid inaad dhiiggaaga u qiimaha badan aa u shubtid dhiigga waxtara waa idin bariyaa maya wallaahi aniga dadkii soo gurmadaa ka mid ahay oo markii hore qaraxii koowaad markuu dhacay qaraxii labaad waxaan soo marayay meesha la yidhaahdo banaadir qaraxii markuu dhacay jigtii labaad gadaalaan war laabtay kabacdi ciidamada meesha isku xiran marka ilaahay isu madiinay meesha waa lagu dhammaaday dad badanaa ku dhammaaday Soomaali ilaahay ma garad qabiilna ma lahan dad gaarana ma ahan Soomaali ayaa meesha isku dhammaatay waxaa ila yaab badnaa nin oo dhexda ka go'an oo la wado gaari cabdibilaas saaran ayuu la yaab badneed oo midceeradiisa banaanka soo jeedaan taas baa ilu yaab badneed wallaahi dadkaas waxaan ku qiyaasayaa Soomaali 200 baan ku qiyaasayaa dad aad u fara badan oo ilaahay maartay tiro badan baa ku dhammaaday meesha ilaahay intii dhimataa u naxariisto waxaan leeyahay Soomaalida meel walba ay joogto nin walba aqligiisa uu leeyahay ha xisaabtamaan ilaahay ma iskale masiibo ah ka dhacday meeshan oo maarta ummadda Soomaaliyeed oo idil micnaha saameysay masiibadaas oo hadda in maanta qalbi bini aadan aan lagu soo koobi karin waa macna qadar iyo inta qada ala xaqiis micnaha ka yimid waaye intii dhimatayna Allah u raxmado intii dhaawacaytana Allah u boogdayo intii maarta ka fakatayna qalbigooda ilaahay macnaha hadajiyo masiibo la soo koobi karo meeshan maarta oo bini aadan qalbigiisa lagu soo koobi karo maahan shalay waxa ka dhacay maarta la meerahan Soobe waa wax la yaabo oo macnaha ummadda islaamka Soomaaliya kaliya ma dhahay ummadda islaamka in kasto tawxiidsanaysa meel kasto joogan oo maarta kanxay oo ka gargaxeen dibkan oo uu soo noqnoqday waa macnaha wax inoo qornay alxamdulillah
إلهي ها إنك رفعي إلهي أسقم عنا جرجال كراديننا عد كلو مارتا نو جرجال كرتام ديب كان خارط أن الله أهين مجرت الحمد لله فرحان برالي رسالة تي في دشو